guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Goorta wadnahaagu ay garaacmayaan, waxay dhiig u soo tuftaa dhammaan qaybaha jirkaaga, iyadoo u soo marisa halbowlayaasha. Inta dhiiggu uu qulqulayo, waxay ku riixdaa darbiyada halbowlaha. Kan waxaa loogu yeeraa cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga oo sarreeya waxay micnaheedu tahay in dhiiggu uu ku shubayo iyadoo uu marayo halbowlahaaga oo xoog aad u daran ku socda. Cadaadiska dhiiggaaga waxaa dhici karta inuu sarreeyo ama uu hooseeyo waqtiyo kala duwan ee inta maalinka lagu jiro. Tusaale ahaan, inta badan wuu hooseeyaa marka ugu horreysa ee aad soo toosto ama goorta waqti aad fadhiday. Inta badan wuu sarreeyaa marka aad jimicsi aad samayso ama marka walwal uu ku hayo. Waa wax iska caadi ah inuu cadaadiska dhiiggaaga uu sarreeyo muddo gaaban, laakiin marka cadaadiska dhiiggaaga oo uu iska sarreeyo, waxay noqonaysaa xaalad caafimaad oo xun. Takhtarkaaga waxaa dhici karta in tan uu ugu waco dhiig-kar ama cadaadiska dhiigga oo sarreeya ayaa marmar waxaa loogu yeeraa dilaaga aamusan. Maxaa yeelay ma laha wax lagu garto, oo waxaa dhici karta xitaa in adiga aadan garanayn inuu jirkaaga waxyeello gaarsiinayn, oo waxaa dhici karta inuu ku dilo. Laakiin waad ka hortegi kartaa oo waad xakameyn kartaa cadaadiska dhiigga oo sarreeya. Tallaabada koowaad: halistaada wax ka baro. Takhtarkaaga kala hadal taariikhda qoyskaaga, caafimaadkaaga, iyo habdhaqameedkaaga si loo ogaado haddii adigu aad halis ugu jirto cadaadiska dhiigga sarreeya. High blood pressure, Somali 29.8. Tallaabada labaad: lambaradaada ogsoonow. Labada lambar ee cabirka cadaadiska dhiigga wuxuu kuu sheegayaa xoogga uu ku socdo ee uu ku riixayo darbiyada halbowlahaaga, goorta wadnahaaga uu majoojinayo iyo goorta uu nasanayo. Lambarka sarreeya waxaa loogu yeeraa lambarka systolic number. Lambarka hooseeya waxaa loogu yeeraa diastolic number. Cadaadiska dhiigga ee caadiga ah waa 120 hoos yaalla 80 ama ka hooseeya. Sidaa darteed, cadaadiska dhiigga ee 100 hoos yaalla 70 ayaa weli ah wax fiican. Tallaabada labaad: ogsoonow loo baahan yahay in daryeel degdeg ah la doonayo inaad raadsato. Goorta cadaadiska dhiigga uu aad sare ugu karo, adiga halis ayaad ku jirtaa. Haddii lambarka sare u dhaafo in ka badan 180 ama lambarka hooseeya dhaafo in ka sarreysa 110, waxaad u baahan tahay in markiiba aad wacdo 911 ee gaadiidka gurmadka. Tallaabada afaraad: naftaada ka taxadir, caafimaadkaaga ilaali. Waa in cadaadiska dhiiggaaga aad daryeeshaa. Tan waxaad ku samayn kartaa adiga oo doorta habdhaqan caafimaadaysan. Dooro cuntooyin caafimaadaysan oo ku yar cusbada. Jimicsi samee ugu yaraan 30 daqiiqadood maalintiiba, 5 maalmood toddobaadkiiba. Miisaankaaga ha noqdo mid adiga kuu caafimaadaysan. Noloshaada ka ilaali isku buuqsanaanta iyo welwelka. Ka fogow cabidda sigaarka, oo xaddid inta khamri oo aad cabayso. Raac tilmaamaha takhtarkaaga ee daawada aad qaadanaysid. Waxaad u baahnaan doontaa inaad maarayso cadaadiska dhiiggaaga dhammaan inta noloshaada ay jirto.
naftaada xasuusi in dalabyada caafimaadaysan ee aad maalin kasta aad qaadayso waxay wadnahaaga, jirkaaga iyo noloshaada ay ilaalinayso. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.